الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلامك قدال سيدا هالكان هورا لغة المامي مانتا ومالين تاريخي وآد وينين تيدنا أي معنى بدن أي إنو ليداي إن بدن أي معلن ماذا أنك هذلي سيدا هذا قدومية يوسف حسين جمعال وتلمامي معلنimadu meel kastoo ay joogto caalamka xataa kuwa horu maray macalinka dadka ugu mushaar badan ama ugu maaha aad loo waxay laakiin dadka bini aadamka ahi laba nooc ay ka samaysan yihiin nooc qanaacada shakhsiga ka hela waxa oo maadiga materialka lacag fara badan guryo qurxoon baabuur qurxan inuu wato dar qaali ah inuu xiran yahay maxaan ku yiraahdaa sida qanaaca nafsiga waa noloshiisu waa faraxsanaanaya qofkaasi marka uu inahaas uu haysto dadka qaar kala jiro oo qanaacada nafsiga waxay ka helaan hadba inta uu qof bini aadan wax u qabtay ama gargaar ka shaqeeyo qof baahan wax biyaha siiyo oo manafad ku badbaadiyo ama dhakhtar iyo caafimaad ka shaqeeyo oo qof xanuunsan ha daaweeyo ama macallin ha ahaado qof wax baro marka qofka ardayga aad shalay ardagaaga ahaa ee meel taagan aad wax baraysay ee aad toosinaysay aad aragta maanta asiga oo mustawa weyn jooga qanaaca nafsi ayaa ku gelaysa oo yacni ay tahay ruuxdaada in ay raali tahay oo aad dareemaysid inaad guulaysatay oo aad wax qabatay ayaa dareemay macallinku dadkaas labaad oo qaybta labaad uu ku jiraa oo sida hadda uu u sheegayay macallinkaas masriga ahaa inuu iska dhaqaaqo oo meelo kale iyo shaqooyin kale iska raadsado oo laga yaabay inuu xamaali noqdo xataa inay macallimada meelaha qaarkood ay ka dhaqaalo badan tahay yaa laga yaabaa laakiin haddana macallin daro waxaan rabaa taasoo kale marka misaal inuu soo qaato 89kii iyo 90kii iyo xataa 88dii nolosha dalka aad ay hoos u dhacday dagaaladii sokeeye dalka ka bilowday dhaqaalaha aad iyo aad ayuu dalka aad ugu burburay oo hoos u dhacay jaamacaddan macallin ka ahaa lacag jaamacadda yar oo 3,000 shilin bagaashan Soomaaliya ayaa la qaadan jiray oo waliba mushaar macallin midda markaas ugu badan oo jirta hal mar ayaa waxaa la yiri inflation dhacay kara macallimiinta jaamacadda mushaarka loo kordhiyo 20,000 shilin la gaarsiiyo macallinka jaamacadda macallinka inuu qaato lacag kale oo weyn oo Talyaaniga marna la helo marna la waayo waxaas iska socdeen oo midowga Yurub oo bixi jiray laakiin mushaarka aad bishu soo xaadiraysa 20 kaas kun 3-4 maalmood reer kuma filan reer iska mutawassit oo aan fara badnayn xataa kuma filan bishi inta ka soo hartay reerka biilkooda waad garan kartaan sida uu ciriiri u yahay macallinkaas waxaa laga sheegay baartaan shaqo raali xagga ka shaqeey ganacsi yar gal inta ka shaqeey noloshaas macallimiintii berigaas nasiibkooda ilaahay ka dhaw ku soo shaqaysaan ahay haddana hal maalin macallinimadana kama tegin kamana sigsaagin ayada oo nolosha qoyskayga aan siyaabo kale markaas oo shaqo dheerida hadda oo macallinka sheegayo oo kale aan ku xallino oo aan ku dabaro macallinimadu marka waa hibo qofka ilaahay uu siiyahay qanaaco oo maadi oo qofka uu ku qanaaco kaliya ma aha waa macallinkaas magaalada yarta ama tuulada baadiyaha jooga burburkan uu dhacay kadib tacbasha iska galay ama xoolo iska galay maanta la dhahayo inaan dib u soo noqdo macallinimadeedii qaataan diyaar ah marka sideedaba dadka Soomaaliyeed inay fahmaan waayo macallinku qofkaas waaye oo leh rabadaas iyo rabitaankaas oo qanaacada uu ku helayo cunug yar oo Soomaaliyeed ayaa wax bartay taas macnaheedu ma macallinka hala dayriyo macallinka maadaama uu sidaas yahay si uu cunuga Soomaaliyeed wax la barayo oo diiradda u saaro focus u ahaaday in maxaa ku raay laga baajiyo
waqtiga oo meelo kale ku bixin lahaa si uu waxbarashadaas u istarsaxan hadda uu sheegay 6 saacadood soo toos 4 saacadood soo kac markaas soo xasuusto howl laga rabay fariiso ee qor macalinka uu ku jiro macalinka waxaa laga yaabaa standardskii adduunyada ee macalinimada ay u deganeed in aanan dalkeena uuna ka jirin oo laga yaabaa adduunyada inay tahay 20 arday ayuu macalinku wax bari karaa annaga markii noogu ficnayd 45 arday ayuu macalinku wax bari jiray waxaa la yidhaahdaa afqaraad yura student staff ratio yani halkii macalin meeqa arday waa macalinka meesha energygiisu ful ku yahay focuskiisu uu ku buuxo inay ardadu yar tahay si uu arday kasta waqti u siiyo ula istaago ula fariisto u tago waxay warqadihiisa u aqriyo ku noqdo laakiin sida ustaad saxan uu sheegay 80 arday marka lagu dhiibo imtixaanka maadada dhigtay 80 arday soo sax ama 120 arday soo sax oo 10 soo diyaari oo maxqiimeyn kale u sameey oo akhlaaqdooda iyo edebtooda iyo waxooda qiimeen hawl aad iyo aad u ballaaran oo culus oo qofka bini aadamka ee maskaxda ka shaqeeya weliba ku culus waayo macalinku maskaxda ka shaqeeya murqaha kama shaqeeya laakiin duruufta dalka keenta dalkeena jirta macallimiinta dunida saddexaad inteeda badan dunida oo dhan baan daana laakiin si gaara dunida saddexaad dadka ugu mushaahir waa laakiin waxaan rabaa macallinka Soomaaliyeed inaan u sheego macallinku waa dhibtoonayaa wax badan oo wanaag uu qabanayaa qofkii shakhsigii Soomaaliga ah ee bari mujtamacana sidoo u ekaan lahaa ayuu soo qaabaynayaa yaraantii laakiin waxaa isbarbar dhigtaa macallinow askariga Soomaaliyeed ee dhimanaya ee dhaawacmaya ee duurka lugaynaya ee gaadiid ku filan oo raaca aanan haysan oo isbitaal ciidamadu ay leeyihiin hadduu dhaawacmo lagu daaweeyo aanan haysan oo maxaan ku yidhahdaa qalab fiican iyo wuxuu u baahnaa aaliyaadka xataa ku dilaanaya asaguna waa ka sii lacag yaryahay macalinka waa ka sii lacag yaryahay laakiin sidaasaa wadda asigana qiiraa ku jirto waxa ka shaqaysiina waa qiiro ee lacag ma aha qiiraa ka shaqaysiinaysa macallinku 2014 ayaan isbaraarujinay aan tacliintii xaggee jirtaa dowladnimada xirfadda ugu fiican oo aad u aqaan macallinimada iyo tacliinta waa la isweydiiyey wasiiraddii tacliinta beriga ay joogtay Dr. Maryam Qaasim barnaamijkii la timiday barnaamijkii aan anigana aan ku garab siiyey in iskuulaadkii public ay dib loo furo markii ugu horreysay iskuul public ah oo ay ardadu free ku dhigato kun macallin hal shaqaaleeyaan dhahnay markaas macallimiinta xataa qaarkood shaqada inay ku soo noqdaan ay macallimadu soo noqdaan rajaxuma ay qabeen waxaan baraa lagu kala tegayaay meelaad hadda ku qaabaysantood bilkaaga keesha bal isku sii ilaali mid yaraa iyo mid baxnaan yaraa iyo allah meeshii la rabay lama gaarin iskuulaadkii dowladdu ay dhahayd oo private ah inaan ka shaqeyno in private-kooda ha ahaadaano waxaa lagu dhigto gelinka dambe free ha lagu dhigto inaan dhaha oo public ha noqdo oo muxuu ahaay aan laga shaqeyn meeshaasaa ka soo bilaawna maanta meel meeshaas ka fiican aan joogna maanta dalka Soomaaliya waxaa joogto qiyaas la qiyaasay oo ah 5 milyan oo arday oo da'dii waxbarashada ay geli lahaayeen joogto ma kuwa ku jira ma kuwa ka baxay hadda kuwa diyaar oo waa inay waxbarashada galaan 5 milyan maanta 1 milyan in ka yar ayaa private iyo public iyo kulli marka la isku daro yaa iskuulaadka aada waxbarashada fidda waxbarashada aada 4 milyan oo ka midana bannaanka inuu joogaan carradii jidka ku beegaan waxaa afka qalaad lagu yidhaha yani timing bomb waa bom oo waqtiyeysan waay cunuga 4 jirka 5 jirka 6 jirka maanta markuu 20 jir noqdo oo sidaas uu ku noqdo muxuu samayn doonaa maanta in laga fikir u baahan sidaas daraadeed annaga waxaan go'aansanay ninkii odagaa wuxuu yidhi ma tabaraan la guuraa mise taake ismuhubna tabar aan guuri tabar guuridda annagoo ku shaqaynaynaan dhahnay ardada ugu badan ee suurtagalka waqtigan iskuulka lagu soo celin karaa lagu soo celiyo kow macallimiinta inta ugu badan ee la tababari karo lana shaqaalay karana hala tababaro hana la shaqeeyo sidaas daraadeed
budget ka sanadkan cusub ee soo socda dowladda ay dhisatay lacagtiisa kor ayaa wasaaradda tacliinta budgetkeeda kor aan loo qaado waxaa loogu qaadana shaqaale rayida iyo magaciisii in lagu qoro maana macallin in lagu qoraa loogu qaado macallin muddo usbuuc laba usbuuc gudahooda 5 dowlad goboleed iyo gobolka banaadirba waxaa ka furmi doona tababar macallimiin cusub oo la tababarayo ama kuwii hore shaqada ugu jira oo dib loo tababarayo 3,000 oo macallin in la tababaraa rabnaa shaqaalaha dowladda wixii tababar macallinnimo qabo ee meelo kale ka shaqeeyana in ay wasaaradda tacliinta dib lagu soo celiyo shaqaale wasaaradda tacliinta ay macallimiin inay noqdaan weliba khaasatan iyo maamulayaal iyo yaa rabnaa si macallinka tirada macallimiinta ee dalka ka jirta ay kor u qaado macallimiintaasi waxaa rabnaa iskuulaadka dowladda public schools inay dhigto iskuulaadka dowladda sanadkan waxaan talada nimiday ayadoo oo waa free la leeyahay oo aan lacag ma ah laakiin haddana waalidka lacag laga qaado shahaado rabaa lacag ka qaad bedelo rabaa lacag ka qaad maxaan ku ihahdaa iskuul isugu timid registration lacag ka qaad tomay laba lacagood oo marka la isku dardaro waalidka qaarkiis culayska sideedabana iskuulka dowladda iyo publica waxaa loo furay qoyska danyarta ah qoyska aan danyarta ahayn $10 bishii waa iska dhiibi karaa ilmihiisa iskuulay jiraan maba joogaanba bannaanka inta badan laakiin qoyska danyarta ah ee hooyada saaki ka lahday ee suuqa bakaaraha xamaali u ka lahday ama reer inta u tagtay inay dharka u soo dhaqdo oo ay gurigu soo nadiifiso u ka lahday ama aabbaha gaargacmeedka qaatay ee saaka isna sidoo kale suuqa aaday gaargacankaas inuu soo riixaro wax ilmaha biilkooda uu ka soo saarana waaye midka kuwaas waa kuwa iskuulka dowladda loo furay inay ilmahooda geeyaan waxaana waaye aragnimaduna bare kuwaas ayaa ugu tacliim badan oo ugu fahmad badan oo ugu maxaan ku rahdaa wanaagsan marka iskuulka la aado Soomaaliya waxay ka mid tahay ama tahayba dalka keliya adduunyada ee hooyo iyo aabba aanan waxba baranin oon iskuul tegin oon jaamacad tegin oon magacooda qori karin dhala wiilal iyo gabdho PhD noqda aniga haddaan iska soo qaado 10 sano oo jira aabbahay dhintay hooyaday ay soo guursay hooyaday gurigeed iskuulna ma tegin dugsi quraanna ma tegin waxna ma qoro waxna ma aqrin allah u naxariisto waxna ma qorin jirin haddana qoyskeena dhammaantiis hal qof oo saaqitay oo waxbarasho la'aan ma qabno aniga iyo walaalahayba dhammaan dad waxbartay aan hooyadeedna intaas baan daba taagnayn annagoo biilka ka soo saarno 2 saacadood oo reer kuleeya caanaha laga maalo oo suuqa nusna la geeyo nusna annaga maxaan ku ihahdaa sababta naloogu dara annagoo ku nool ayaa haddana wax baranay fursaddaas oo kale ayaan rabaa marka waalidiinta Soomaaliyeed ama ilmaha Soomaaliyeed ee agoonta ama muxuu karaa waalidka danyarta uu dhalay fursaddaas inay helaan oo sida aniga maanta waqti dheer ay u qaadato aan PhD u ay bari inay PhD noqdaan waan ku shaqaynaynaa bi'amina macallimiin badan ayaa register gareynaa bixindoona waxaa kale oo intaa dheer haddaatay wiilka halkan xiriiryahanka u sheegay isgoyska maanabooli hadda kahor in badan uu ku celceliyay maalinaan soo marno waxaan rabnaa inaan waddada gadaal u fiirino markii Soomaaliya horta ay ugu arday badneed 470,480 qiyaastii meelahaas sanadka 400 iyo arday ayaa ardada Soomaalidu ay ahayd oo 400,000 oo arday ayaa ardada Soomaalida ahayd maanta oo dhibaatadan jirto waa taan leeyahay 1 milyan ayaa muxuu ay ku dhowdahay ardada Soomaaliyeed iskuul aad wacyiga isbedelay waayiga isbedelay dadkii isbedelay duruufii isbedelay haddii weliba muxuu ahayd xaaladuhu si intaan ka wana ay jiri lahayn ka wanaagsan lahayn 5 milyan oo sheegaya iskuul wada aadi lahayn ilaahay idinkiisa laakiin in xaaladaas la soo celiyo fursadahaas la soo celiyo waa rabnaa sida aan sheegayna waa sidaas ardayda kuwa ugu tacliinta fiican waa kuwa qoysaskaas danyarta ka yimaado oo inay ka baxaan duruufaha ay ku nool yihiin raba hiigsanaya maxaan ku ihahdaa qeyrkood laakiin ninkaan guriga iska dhaqan ka yimid waxaa laga yaabaa waxbarashada uu ka baxo wuxuu heli lahaa inuu hadda haysto
وقولوا بايستان غيابة motivation يعني أنا لهين محور واحد أو يرجع أو رسمه معلم كمركع ومتى دي الدوميناي أو الدومتلا ربنا ماشي لقدم معلم كأوري ماشي هو رئيس لقدم معلم كأوري ماشي لغاية لقدم هو يدور جوا هو يدور جوا هذه هو يدي هو ينملي كفاني سلام ومعلمك ومعلمك كعرضي أو كفاني أو كرماني الأرض مجتمع سواد دمي مجتمع دمي ومجتمع وأنا صامر عنده فاصل ما أنت إلى إذا كسوا كسوا كمان وكان بدي معلمين ما أنت اللي وفانا جونا ما عند ويتو وحال تجي وضعك إريتريا ويرشيني أيامته ويرشيني وحقص أركي أسكر أيام الله حري ما كل حري أسكر من الله حري قفل بقى كم إذا قليل بس لمن دقاتير أو جامعة كبحي أو شهادة ذي كاري أو كجرة ويل إنجنير أو جامعة كبحي شهادة ذي وطا أو كجرة ماشي مسوق كذي أسكر دم مسوق دكتور أسكري لماذا العبوا كجري من الله ديكنا أما إنجنير كاس العبوا كدورة ماشى سو العب بدن إنه على الدرادي ذو أسكري ونقطة من الله ديكنا سو دتك واد عرقتها واحد دتك دقاجية ورد وراهي معها ماتيريال كعب محمدية سلاس درادي دتك الصومالية ذو حوق إيو فوكس إيو ديرد أنصاري ناحي محمدية inay lagu yaraataan u baahnay dadkeena inay ku yaraataan sida aan umad ku noqon karno waa sidaas sida qofku oo nafti huranimo oo ku samayn karan waa sidaas oo wax ku huri karo laakiin qofka hadduu shilin kam dawarta min jeeb haddii shilin oo shilinku arkaba inta u gabiyo oo qaasimada ku rido yiraaho meeshaada ka soo bixin macno badan ma yeelanayno sidaas daraaddeed xoogga iyo caqliga دقاتيرتو وكفي عين معلمين تي فيلد عافماتك إنك سوفيلد عافمات معلمين بدن أي ولد بدن كلينيكا ديسك فرتان نختار بدن لعقب في الهيلا ديسك صوت عفين عرضي سو استعجل معلمين وعندك عن المامي كتقول لك عن المامي أي كمدين هذا أنا السبي معلمك ونور في عينه كلينيكا ديسك فرت حتى وحالنا بقى نور في عنها معلمك أنت أنكر كرمو دولة الفدرال كالصومالية أنا مدحوينها كأهل وحكستو أن هيلي كرمو أما أن صحابة كرمو عنك الصومالية أيام لبدا مستعجلة هديتها الأقارب هديتها المحبرين هدي أنا المشارك وكل كرن إنا سكر أمارين وحريسة قوس كسيلو غيره ومعنك هدي ما مانتي يبري لكن قول معنك الله يرى قول ودقوا ويرى لكن waxaa soo dhan hal wadaxa isku soo fursanay waalidiinta ardayda iskuulaadka ku tirsantay in ay macalinka u muujiyaan ixtiraam meesha ka bilaabanaya oo ardaygii aabaha ama hooyadu iyo macalinka ardaygu yimaad inuu yiraahdo macalinka maansan yaro waa in ka darayahay darajada yarta ay soo isiiyo saali macalinku ma kartaraado waxa uu jecel yahay waa ardaydiisa waa wali guuleystay in yara waa waxa uu jecel yahay laakiin marka ardaydiisa oo qaar badan oo kamid inay dhacayaan waxa uu farxayo ma aha oo macalinka wuxuu ahay raali gelina macalinka naftiisa insha Allah ilaahay idinkiisa waxbaan ka bedelaynaa annagoo weliba aaminsan wixii uu mudnaa iyo meeshii uu mudnaa inaan gaarsiin karin laakiin meesha maanta uu joogo haddana inaan ka dhaqaajino waa ku dadaalayna haddii aamiyana muhiimadda uu macallinku leeyahay aniga dugsi quraanka markaan dhiganayay meel yar oo iska baadiye aan joognay macallinka beerta waa loo furan jiray beertii macallinka la dhahaa waa isugu tagaa waa loo faraa ardayda ilmaha yaryarka maaha waalidiinta u fara inta isu yimaadeen aadaan yaa la beertii macallinka waa hala soo fara macallinka baadiye markuu joogo reerkiisa waa loo dhaamiyaa dhaanka waa loogu diraa
biyaha dib loo soo dhigaa macalinka xoolaha hadduu leeyahay xoolihiisa waa la shubaa waa la ilaaliyaa waa la warxeeyaa si uu ugu madax bannaanaado inuu ilmahaasi qur-aanka baro cunugu markuu qur-aanka dhammeeyana macalinka waa loo xoolo gooyaa qaalina la siiyaa ixtiraamkaasaa macalinka dugsiga ee miyiga joogaay oo leeyahay welina waa leeyahay kama sugin laakiin macalinkii qur-aanka ee magaalada joogay maxaa haysta waxaas ma haysto xoogaa yaroo lacaga waa la siiyaa laga yaabaa laakiin dee marna lacag ku filan lama siiyo ixtiraamkaas iyo weyneyntaas macalinka beertiisa in la soo falaayo waa laga yaabaa macalinka inuu beerta fala kare laakiin in loo soo falaayo waa ixtiraamay muujinay oo badalka loo jaro loo alkuudiyo loo sumco loo bakaaro wax walba diyaar looga dhigo macalinkaasi maalintiina waalidiinta ilmaha dugsi qur-aanka u soo diri karta ayuu qur-aanka baraa kuwa ilmaha ka maarmi waaye ee maalintii ay xoolaha u dirsadaan oo xoolaha dhaqaana ilaaliyaan cawadiyaa dab inta la shidaa cawadii oo qur-aanka baraa marka asaguna meelna kuma hakado mana reebto muxuu ahay magaciisa awood uu leeyahay sidaas laakiin waa laga keensaday waa loo muujiyey gacma isdhaafaa gacal ku jira waa tii hore loo muujiyey markii laga keensado isaguna intuu kari karo macalinku waa bixinaya tiisa bas ma wado tii dadkana way wadaa marka walaalahay waxaan rabnaa macalinka aan ixtiraam u muujino waa ogahay macalimiin badanaa naga dhimatay ayagoo iskuulka usii socda ayagoo iskuulka ka soo socda ayagoo iskuulka jooga la dilay naftaas nafka qiimo badan ma jirto isgoyska maarabooli sheekada ahayd oo maalin maalmaha ka mid aan meesha soo istaagan waaye arday iskuulka socdaan waaye waa ii muuqan waaye dadka waa kala cararayaan subaxdii hore waa la kala ordayaa hal arday oo buug wato iska dhaaf uniform xataa buug wato oo iskuul u socdo yaan meesha ka waaye baabuurka raacida oo ka hare meesha cabaar hal saac jarjaraan taagna hal arday oo iskuul u socdaas waxaan fahmay systemkii waxbarashada inuu si uu u dhan yahay oo kolaabsi garoobo dhammaaday dowladdii dhacday systemkii inuu la dhacay oona ka hayo waa maxay nasiib daro mujtamaceenna waalidiinteenna ayaa iskuulka yeelan waaye iskuulka wax ay ayagu leeyihiin ayay arki waayeen laakiin dugsi qur-aanka waxay ayagu leeyihiin ay u arkeen dugsi qur-aanka ma dumin ma baabiin looxda lagama bilinqaysan dhistiisa lama qaadanin dugsi qur-aanka waa intagta waa jiray laakiin iskuulka waa baabaday marka waxaan rabnaa horta iskuulka inaan lahaano annagaa iskale waalidow ilmaheenna wax ku barana mustaqbalku imaana maalintaas fikirkii oo dadaalkii iskuul iyo waxbarasho ka shaqeey yaan kusoo aan aad iyo aad joodi badan u geliyey aniga iyo nin saaxiibkay ahay ayaa iskuul isla aasaasay iskuulkaasi laba maraa waqti intana loo yimiday yaa iyadoo xabadana lagu eryayaa nalaga soo dejiyey nalaga soo raacdiyay iskuulka waa ku adkaysanay kama bixin meeshayna ku adkaysanay mar saddexaadana lagu soo noqday annagoo fadhina meeshii iskuulkii maamulka xafiiskii maamulka fadhina qoryana looga soo galaasa madaxa qorana laga saa saaray labadeeda saaxiibkay maalintiisa u tagay yurubuu galay ilaa hadda yurubuu jiraa horta laakiin aniga waa joogay waa ku adkaystay iskuulkiina ma xirmin ilmihii maanta ka soo baxayna ayagoo injineeraha iyo ayagoo dhaqaatiira iyo ayagoo nooc walbale iskuulkaas basica elementariga ah primaryga ah yaa maanta dalka joogaan u dhaban adeegyaday ku baahan tahay marka hadda meeshaas ma joogno maanta macallin inta iskuulka looga tago qoray madaxa laga saaraya hadda maanta ma joogno waa laga yaabaa qarax nimankaas cadowga ay keenaan bal eega nimanka cadowga ah ee wasaaradda tacliinta meeshii arday dhallinyaro ah oo khaalid wiilkayga khaalid halka nagala hadlayo oo kala ah ay saf ugu jiraan inay shahaadooyinka ka qaataan si ay jaamacadda u aadaan u joogaan taarget hadaf ka dhigtay ee qarxiyey ee haddana ku faanay weliba ku faanay la soo istaagay idaacadaha macallimiinta sharafta leh wasaaradda tacliinta ka tirsan oo wasiirkan faarax cabdulqaadir oo la garanayo oo wasiir ka yahay ayaa dadka gaalaysiiyo oo saliibiyiin ah oo maxaan kale dadka waxaa u sheegay inta soo istaag waxaan u leeyahay dadkaas waa sidaas
قرحي دتك مديننا أسكر حبض كل ليس يعني أو عقل جينا أو ما محين نقعتين ممكن إن أنا دت سفاها وحبا أنا قرني وحبا أنا فاهمين إن النهاية وعدم ما أنت تقول وركاس تجيستي أنا بفرح إن وعدم إن صح هذا عندنا شباب وعدم كلية ما الصومالي إلا لا واي إن صح وهاي أن أبي وسلام ظروف تاسع وزارة الشغل ووضع حفيزك امتحانات تشهدويك وبحنايا أردني سكولات وآدية وكلا كسو خريجية امتحان كسلاس وصعدا وقوة محوها هاي ويلكي خالدة ما شاء الله كان أفرطة كنو أرضي نيكو هو مرين نسأل معه شرف يقين مستقبل وين معلم قادم كيف كل شيء قبل نسيلو كلا أيضا وفي عين أنت امتحانك كل سنة وفي عين أنت كل عضينا ما خسارن وأنا 10 برتين صوتي أقول عين تفهمان إن المرضى بيسمع عين كشقة وأيضا معها خسارة أو لا وأنا صوت امتحانك الله كان حكمة امتحانك الله كان أنت صحيح محاربة سيدا آيات القرآن إيو حديث إيو حكمة ذاتك حاكمين كل المجيدين وحبرشان ومجتمع ما تصوروا من لبكم يا لباتن يا لباتن مرة بدأت وعدها صدق يسدد سنة كده لبكم يا نحن والصومالية بقول سنة حرتها للي لديه دون إلهي إذن كس صوماليا نوعية أيام ربنا ما نتسكين للقاء ما نسوح على وعنينا النورين فارق بعد النورين دبنا مش عفرين وأخيار وضياء عن النورين هذي دولي نطلب لنا أن يكون لكن ما مسؤولية نسعر وحيتها لبقوا اللحظة بقول سنة صوماليا جرتا مركا لداهي صوماليا سيوي كامل وهو قفل مسؤول سبقا ويدي قلب يسأل كنت جرتو كسر بولي الصومالي قرحون صوماليا سان دقال أهان انت أمني أهان كرامة أهان وإذا كسر دعيس صوماليا داس قرحون وقلبك كل جرت سيدا كلية المهم كرا يوضد كلية المقاري كرا وضد عن واي معلنك يا أرضك يا اسكولك واي هدانا معلنك يا أرضي يا اسكولك أنن هجاجي أو أنن قرحين نبقى اللي إحنا صوماليا قرحان معك حب صوماليا عن أركل دون قرن غاز الماء أو ياشونا هو أنا أبونا طونا أي جوان سيد صوماليا وشقي نواي سيد صوماليا جهد أقول نواي تعليم تستوى نواي عمق يركع مسك حديث حرف القرآن الله شاء وكل من هاي نقشط القرآن نجح صومال نجح مال يلا عدد أنت تقعد كرع عضوات كقرطه أما بي أما بعض كقرطه أبدية نجح حسب على سوق قولي كم بي مستدرب كستاكوده قرح كستاكود عضو وقولي كتر من اسم عمق يركع اسكول كجوجاي مركا أمس حديث وحام شغله أنتوا يوم يعني سيدا سيقول قرناني أمكس بقول سنة أمكس هذه إلهي تأسيح تويقول قرناني وحي الله صادق هذا محسوسته ما إلوه ما أنت تقولش اسكول تجي ما أنت تقولش اسكول تجي وحسوسته أنت بدل أنت عن اسكول كاس عن دجاجة ابتدائي أو باللغة وحسوسته هلا جاب الجامعة دي تاني دجاجة ما كلام فربنا ما أنت جامعة أوريس جامعة فلسطين محسوس قلتي لكن ما أنت سكول يقول رئيس أنت اللي يسود بسبب اللي يسود بيونيفورم أنا وقت عن كلاس كصوت ولا أنفرس تبغى حسوس ما يقولون لأن ما محن بدأ يراي عروض تمرك تربية وتاسوع ما فيزيكس كيمستري بيولوجي بس برشلونة ما أنتاس أخلاق ديسة أدبتيسة احترامك والدك احترامك يجعلك ضلك يدينك ما أنت سبحان الشيء تواي وحمس كحديث كل دائما إلى أول شيء أنت كده وح لا حق الضبط إنه دكتور هذا براكتس قريت دكتور بدو يدوبي
injineer haddaad tahay haddaadan practice garayn injineernimada waa iloobay laakiin cunugaa yarka ah wixii maalintaa loo sheegay sina uma iloobayo sina maskaxdiisa uguma tirmayso ilmaha aan wax yar u sheego aan wax fiican u sheego oo wax qurxoon u sheego waxan waa yaryihiin weliba inaan u sheegno u baahna wax weyn oo rocket science ah maaha ilmaha inta aan fursadda haysano waa intaas marka uu meeshaas ka soo baxo wiilku soo koro gabadhu soo korto hami yeeshaan adduunyo kala galaan xusuustooda way siinayna laakiin markaas hore xusuustooda iyo ixtiraamka iyo waxa lagu beeraay ebidkooda waa ku beernaanaya meeshaas marka maxaa ka dhalanayo sistamka tacliinta in dib u eegis lagu sameeyo wasiirku waa mahadsan yahay oo shaqo badan hadda ay wasaaraddu ay ka wado qaabka waxbarashadu wax oo joogto ah maaha mar walba duruuftay la jaan qaadaa dhaqaalaha dalkay la jaan qaadaa waxay xaaladaha amni xaaladaha dhaqaale xaaladaha bulsho ee dalka ka jiray la jaan qaadaa soomaaliyada maanta waxbarashada ku habboon inaan keenno waay waxbarashada ku habboon waa maxay waa midda tarbiyada ah waay midda tarbiyada ah oo cunuga maskaxdiisa iyo qalbigiisa waxa lagu beeraya waay walaal jacaylka wadan jacaylka diin jacaylka edab waalid ixtiraamka mujtamac intiisa kale waxyaabaha cunuga in lagu beero oo shaksi fiican si uu noqdo intaas waxaan kaloo dhan waa la baran karaa waxa aan marka la weynaada aan la baran karin markaan yaryarna inay ilmaha soo barno adiga akhlaaqdaada waa cuntahay saan yeer akhlaaqdaada toosi qofkii maanta iigu yimaado waryaa waxaan leeyahay idin qabtid laga yaabeen waxa uu sheegaya inay run yihiin kan iga yar iyo kan iga sii yar kan wixii kan igu sheegaysan waa sidoo kale laakiin wiilka yarka ah waa iga dhumay intii lacag carareen sawiraan ahayn jiray iskuul ku yaalla Malaysia oo iskuul yar oo elementary ah weliba ibtidaa'iga meelaha ugu hooseysa grade 1 grade 2 iyo xanaanada waa ilma caruur aad u yaryar ay joogaan maalin uu leeyahay iskuulka maalinta waalidka ah waalidiinta loo yeeraa ardada hooyooyinka weliba hooyooyinka yaa loo yeeraa ardada loo yeeraa cunug kasta jalamad caad biyo ku jiraan iyo waxaa la soo siiyaa geedkan yaroo beeshinka yarka waxaysan waxaa meelanageeya waa loo soo xiraa waalidka iyo muhiimadiisa iyo axaadiista waxaa loo soo akriya waalidka inaa ka duceysa ku taraa qorta hooyo wax u dhaqaaldhaa yacni waxay ka bilaabataa weligiis waalidkiisa inuuna iska weynaysiin weligiis waalidkiisa inuuna hoos u fiirinin oo mar walba waalidkiisa waxa ugu muhiimsan oo ugu weyn u ixtiraamaya dhulkaas inay noqdaan yaa lagu soo baxeeya lagu soo tabar lagu soo baxeeya hooyada iyo aabbaha weliba khaasatan hooyada marka muxuu ahaay akhyaarta warkooda ku badiyay aad iyo aad almaasida macalinka soomaaliyeed meel kasta uu joogo waa hambalyaynayaa hawsha adag ay ku jiraan waa bogaadinayaa dalladihii waxbarashada maalintaas maxaan ku ihahdaa iskuuska maanaboli aan ka sheekeynayay iyo wixii ka dambeeyey dareenkaas ayagoon si gooni anigoon is arkin xataa si gooni inta u qaaday iskuulaadkii bilaabay waxbarashadii bilaabay dallada sameeyo isku yimiday si ay tacliin midaysan ugu sii dhowaadaan xaggeeda oo kurukuru midayso anigu aan ka mid ahay oo meelay soo gaarsay ayaguna runtii waana ammaanaya waana bogaadinaya dalladahaas walaalaha waxaan rabnaa laakiin ardayda aad haysaan inta adinku aad scholarship ahaan aad u siisaan mooyaane inta kale waalid $10 bisha iska dhiibi kara waaye ogow boqol jabbaab kuwaad haysaan $10 iska dhiibi karnaa bannaanka joogo sida aad ku saacidi karta waxay tahay wasaaradda tacliinta inaad saacidid wasaaradda tacliinta inaad u dhaga nuglaatid barnaamijyada wasaaradda tacliinta ay dejiso oo siyaasadda guud ee tacliinta dalka ah inaad dhaqan gelisid tacliin private ah mar walba waa jiray iskuulaadka private waa jirayaan laanna iskuulaadka public ah ay culayska ka qaadayaan waalidiinta soomaaliyeedna meel kastoo joogaan kuwooda awooda inay iska bixiyaan iskuulaadka private ka geystaan laakiin annaga waxaan ballan qaadaynaa kuwa aan awoodin in iskuul loo helo
loo bilaabay helitaankeeda maalin la gaarana loo wada helo kulli tayada waxbarashada iskuulka dowladda iyo iskuulka private-kaana haddaanay ka dowladda ficnaanin inaanay kala ficnaaninna waa ka shaqaynayna daadina macalinka iyo facility-ga jira ayaana mas-uul ah sidaas daraaddeed dalladu waa mahadsan yihiin aabbayaashii waxbarashada maanta jirta ee cusub waaye ha waxeeyana dhaqangeliyaan jaamacadaha soomaaliyeed kulle dhammaantood ayaguna waa garanayaa duruufta ay ku shaqeeyaan laakiin in badana waxaan tuugsanahay qaar ka mid a in aanay sidii saxdeed aan u shaqaynin ay si nasiib darro ah dadka ka shaqeeya mas-uuliyiinta qaarkood ay yihiin dadka qanaacada ka hela materiaalka oo lacagta aad iyo aad u jecel laakiin ustaad biday oo hadda halkaa nagala hadlay oo asoo dhakhtar oo caam oo weliba dhakhtar la yaqaano ah inta uu istaagay waxbarasho gadan ee waxbarashadii lagu qarxiyey ee ku dhaawacmay ee jirkiisa maanta haarihii dhaawacaasi ay ka muuqdaan qof kasta og shaamu wixii ka dhacay ku dhaawacmay ee haarihii dhaawacaasi jirkiisa ay ka muuqdaan saaxiibadiis in badanoo ka mida ay ku tageen haddana maanta weli taagan oo maxaan ku dhahday waxbarashadii dadkeenna bahda waxbarashada dadka bahda waxbarashada ku jira ee micnaha leh ee qiimaha leh inaan qiimaynaa waajib nagu ah haddaan qiimeyn weyno dadaalkeenu dadaal aan macno lahayn uu noqonaya beesasi ma karno guryo uma dhisi karno maxaan ku dhahday wax kale baa waxay karno laakiin at least magacooda inaan sheego meelo badan inaan ka sheego waxa ay sameeyeen iyo juhdiga ay bixiyeen inaan cayino oo aan sheegno oo aan dhahno muxuu ahay juhdi fiicana bixisay qofku farsamada iyo waxa waa ka qaldami karaan laakiin inay niyadiisu fiican tahay waa wax muhiimka ah niyad fiicnaan inuu la yimiday gudoomiyaha jaamacadda ummadda soomaaliyeed xasan hadda hortayda ka muuqda saaxiibkay jaamacadda louisiana united states ku taalo full professorka ah associate professor la yaqaano inta iska soo laalaabo meel soo dhigay uu ka yimid oo meeshaan yimid qofka noocaas waxa waaye qalbigiisa iyo niyadiisa wanaagsan lagu qiimeeyaa laakiin afcaasha bini aadana nahay maalin waa gaabin karnaa maalin waa qaldami karnaa maalin waxaan dadka raali gelin waan samayn karnaa muhiim weyn maaha maanta dhaan qaladna beriyaan saxeynaa laakiin awal shaqadu inama alacmaalu binniyaati soo maaha xadiidka rasuulka alayhi salaatu wasalaam niyada waa horta wax walba waxay ka bilowdaan markaad niyada la timaado kabacdiyaad ficilka kabacdi u imaana oo muxuu ahay u dhaqan gala niyaddeena aan samayno dalkeenu waa soo laabtay waa u dhownahay muxuu ahay xaaladdeena hadda waxay ku sugan tahay runtii kuweyna quusta iyo rajaxumada ku jirtaa waxaan leeyahay xaaladdeena waxay la mid tahay maalintii ilaahay uu ku yidhi rasuulkiisa calayhi salaatu wasalaam alaysa subxu biqariib subaxay sooma dhowa markuu murugooday nebiga uu arka dadkiisa siday u dhaqmayaan iyo waxa ka taagan markaas subaxi waa noo dhow yahay maalinta guusha waa noo dhowdahay waktigeedu waa soo dhow yahay ilaahay idankiisa annagoo kalsoon isku kalsoon annaga inaan maantana waa dhadhaminay guulaha ciidankeenna iyo shacabkeenna iswata ay gaarayaan waa ka macaan yihiin guul kasta oo kale oo dad ajnabi ah ay noo gaaraan waa ka dhadhan badan dad badan naga dhintay dad badan nooga dhammaanayo wiilal cadcad oo maxaan ku ihahdaa geesiyaal ah ayaa nooga dhintay nooga dhaawacmay laakiin guusha ay gaareen waa ka micno badan tahay waana ka dhadhan badan tahay marka la yidhaahdo qolo kale oo saaxiibo ah oo ayaguna mahadsan dabcan ayaa guushaan soo hooyay marka la yidhaahdo teednaasaa ka dhadhan badan waana istijaabina waa is aragnay shabaabna waa aragnay dalkana inaan dowladnimadiisa keeni karo waa aragnay soomaaliyey meel kastoo aad joogtaan walaalayaal cabsida aan iska yarayno qof walbo ogow maalintaadii dhaafi maysid kamana soo hormaraysid ka horna dhiman maysid kadibna gaari maysid marka dadaal dabcan in la dadaalo oo aan la ishadligin oo khataraha aan la isku dilin waa waajib laakiin haddana wax kasta hadday kuu noqdaan cabsida haddaad inta aad waa cabsanay haddaad hadalkaan tiraa waa cabsanay haddaad kan diidda waa cabsay haddaad kaasi tiraa waa cabsay waa qodob aan iska yarayno qodob kale aan iska yaraynayna
ولما قدر كانوا سجار ولا عند كستم مسؤولة مع مسؤولين الدولة بس معلمين معاملات عندهم مسؤولة أي أو ما الضرب مسؤول كواحد مسؤول كلية ما الضرب بالبيو مسؤول كمان المسؤول وحملها كعرب اسكباف يعني قالين والله وزير كان قلت صار لي والله ما هو اسكو انا شرينا هبلو دي ما انت انا اللي ريرك اسكو رير انا هي ساسا لو ايدها معاصه كمان لان قلبي قال انا قال كنت غاريس قلبي waxaas kuma jiraan niyadaada kuma jirto go'aanka aad gaaraysid oo aad qof shaqada u joojaysid ama mid aad ku dalacsiinaysid ama arday aad darajo ku siinaysid waa qalbi niyad samaan iyo wanaag aad uga dan leedahay wuxuu inay sii hagaagaan mas-uuliyadaada inay sii hagaagto dalkuna hagaaga waay sidaas daraaddeed reer hebel ku eeday ninkaan bal adiga iyaguna ku eeday kan iyo ku dhicin haddaan dhahno shaqa ma qabanayn waxaan rabaa inaan kusoo gunaano aleysyadayda sanadahan waa iska badan yihiin mid aan u arkay inuu aad iyo aad muhiim u yahay marka laga yimaado cadawaa hal marka laga yimaado midkaana ii labayo dadka inta fafadhiya akhyaarta muxtarimiinta ah gabdhay wiilal badan dalka waa soo joogteen shalay sooma dhalanina dayax gacmeedna kuma imaanina waa joogteen soomaaliyaad joogteen ama caasimadda joog ama meel kale joog magaalo kale joog carta laga soo bilaabay jamhuuriyadda saddexaad markii lasoo aasaasay ilaa maanta 22 sano 22 sano madaxweyne aan lahayn baarlamaan waan lahayn wasiir waan lahayn agaasimayaal waan lahayn wax walba waan lahayn sidee doontaa noogu yaraan laakiin 22 sano meeshii uu gaari lahay maanaan gaarin ma gaarin sidaas saxaan uu sheegay cilmi baarista la sameeyay cilmi baaris waa maxay waa inaad fikirtaa tira waa waxaan question su'aal waa inaad keentaa waa maxay asbaabta waxaan ay u dhacaan hadday wanaagsan yihiin maxay u dhacaan hadday xun yihiin maxay u dhacaan war meesha maxaan ugu hayaa 22 sano oo dowladnimadii soo celinteedii aan ku mashquulsanahay oo intaas aan dad badan oo macnale oo madaxa oo mas-uuliyiina ay nooga dhinteen nooga dhammaadeen ayagoo curyaamiina ay joogaan waay ilaa qof kastoo wiil kastoo soomaaliyeed gabar kastoo soomaaliyeed waa jeceshahay dowlad soomaaliyeed oo nadiif oo shaqaynayso oo facaala inay aragto waa jeceshahay qof walba ma shaki ma gelinayo qofaan dowlad soomaaliyeed rabinaa jiro ma dhahayo intaan ka ahayn shabaab laakiin waa inaan isweydiinaa waa maxay asbaabta lagu haysa meesha 30 sano oo meesha naalno waa 30 sano adduunyadu ay horumartay teknoloji ahaan dhaqaale ahaan xadaaro wax walba 30 sano waa adduunyadu waxa ay aad iyo aad u horumartay annaga maxaa meesha lagu hayo oon u gaari laanahay waxa adeegsanay asbaabeedu waa badan yihiin inaan inta ka tiriyo mar raba laakiin hal midoo asal u ah yaan idiin sheegaya 22 sano ee jamhuuriyadda saddexaad ee dalkani ka jirta sidii aan wax u samayn jirnay haddaan u samayno waxaan heli jirnaan helaynaa oo ah wax maanta aan haysano iyo meesha maanta aan joogno maxaan u baahannahay waxaan see loo samayn jiray sidaanay ahayd saanay soo ahayd intaana la soo sameeyey agaasimaha saanu ahay wasiirku saas inaan ka dunuudhanay saan loo soo yahaa maya markaan saana loo samaynaa sidaas waa loo samaynaa ajiro cusub waxaa laga yaabaa inay ayadana sideeda ay si saxaad uga weyn inay guulayso weyn laakiin isku dayaad samaysay waa isku day laakiin haddaad wax isku dayin ka waran ood meesha iska fadhido 4 sano aad tirsato ood ka bacdina amaba 2 sano wasiirka waa la bedelaa la yiraa agaasimuhu haddii wasiir cusub u yimaado wasiirka agaasimeeshiisu keensanaa kuwaan waa iska raacday doonaa la yiraa meeshii aan fadhino qof kastoo mas-uul ah waxaan farayaa ardaaranima sida uu wax u sameyn jiray inuu dib u eego oo si ka duwan u sameeyo si aan u helno wixii aan heli jirna wax ka duwan aan u helno waana hubaa wax ka duwan oo ka fiican wixii hore samayn jirnay ayaan helaynaa inaan wiilasha soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeed meel kastoo joogaan dab ka saarno dhaano gala dagaalka naftayda kuma raaxaysanayn laakiin inaan iska joogno oo meesha iska fadhino maalin xaggana laga qarxiyo maalin xaggana loo maro
maalina aan shabaabka intaan iska laaluushnaan war qaraxyada naga yaree waana anfici weyday wixii hore samayn jirnay wax ka duwan inaan samaynaan ka wadnaa ifafaaliya wixii ka duwan aan u samaynay wax ka duwan wixii hore fiican inay ka soo baxayaan waa soo aragnay daraada ugu dambeysay meesha aan tagay ayaa ka mid ah madaxweyne soomaaliya weligiis ma tegin meelaha qaarkood wasiir ma tegin xildhibaan xataa ma tegin hadda dagaalka shabaabka hadda xildhibaanada geesiyaasha ay tageen oo madaxweyne goboleedyadu meelaha ay tageen oo wasiirada dowlad goboleedku ay tageen oo wasiirada dowladda dhexe annaguna aan tagno waxaa keenay sidii hore shabaab loola tacaali jiray si ka duwan inaan ula tacaalino aan dhiirano isbeddelka aan ku dhiiro waa xanuun badan yahay waa eed badan yahay waa laga yaabaa inuu meelaha qaarkood oo qaladaadkiisa bato laakiin maslaxadaa ku jirta aan ku dhiirano taqyiirka isbeddelka aan ku dhiirano hawsha aan haynay inaan bedelno oo sidii hore si ka fiican u bedelno intaan tashanno oon dadka intii noo dhow la tashanno aan ku dhaqaaqno aan ku dhiirano eedda yaanan ka caran yaanan ka cabsan fashilka ama fashil maahan khalad gelidana yaanan ka cabsan khaladka waxbaa lagu bartaa waa taadhahay ardayga dhacay ma khasaarina waxba u bartay si oo haddii wax loo barto loo dhacaayo fahmo iyo si haddii wax loo barto loo guulaysanayo marka waa socday annaguna sidaas u imaanahay bini aadanana ardayana noloshaan ardaydeedina haddaan qaldanno beriyaan saxayna haddaan saxnayna waaba saxnay alxamdulillah waa toosana hadday naga qaldantayna ra'yigana tala badso dadka ra'yi weydii kula joogo keligiis tooxda ima muxuu ahay keligiis taliyaha noqoni dadka kula joogo si kasta xataa kuwa ugu darajada ugu hooseeya hay-adaada ka ah la sheekayso warso maxay kula tahay saas maxaa aragtaa saas maxaa ka dareemi deh dadku xikmadaa ku jiro rabitaadaa ku jiro dareenaa ku jiro cabirayaan oo go-aanadaada khusaynaya dhammaantood go-aankaaga khusaynayaan dhammaan go-aano kharkharaad oo marka qaarkood dadku ay dhibsanayaan oo ay muxuu ahay diidayaan oo ay maxaanku yidhaahdaay ka goos qabsanayaan inaad gaarto marka qaarkood waa ku khasban tahay waana inaad gaartaa laakiin dadku marka go-aanadaas wax saxa ka soo baxaan waa jeclaanay aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin waqtigii warkooda ku dheeray waa kulushahay mar kale iyo mar kale waxaan hambalyaynayaa oo bogaadinayaa macallinka soomaaliyeed meel kasta uu joogo kaada almucallimu an yakuuna rasuula asalaamu calaykum